رئيس الوزراء ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta dah furay habka maareynta maaliyadda ee dadweynaha gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee Xamar. Wariyaha Nuur Saciid Tahliil ayaa noo faafaynaya warkaasi. Dahfurkan hab xisaabeedka maareynta maaliyadda dadweynaha gobolka Banaadir iyo dawladda hoose Xamar oo ah mid casri ah oo elektaroonig ah ayaa maanta muddo 27 sano kadib soo bandhigay maamulka gobolka Banaadir waxaana dah furay ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya iyadoo munaasabada lagu soo bandhigay ay goobjoog ka ahaayeen wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dawladda Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho hanti dhowraha guud ee qaranka xisaabiyaha guud ee qaranka xeerlaaliyaha guud ee qaranka madax ka socotay bangiga adduunka iyo marti sharaf kale dadkii ka qaybgalayaasha ahaa iyo madaxda ayaa waqti badan ka doodayay hab xisaabeedka dhaqaalaha dadweynaha gobolka Banaadir iyo dawladda hoose Xamar waxayna tilmaameen in nidaamkani uu yahay mid baahi weyn loo qabay isla markaana fududeynaya ka hortagga musuqmaasuqa iyo sar u qaadista isla xisaabtanka munaasabada kadib ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed waxa uu warbaahinta u sharaxay ahmiyadda barnaamijkani maanta runtii anagu sharaf weyn noo ah in aan markii ugu horeysay aan dah furnay hab xisaabeed ama maamulka miisaaniyadda ee gobolka Banaadir oo ku shaqeyn doono hab xisaabeedka cusub oo loo yaqaan ee dawladda dhexe sidoo kale ku shaqeyso Public Finance Management oo aan ugu talagalnay ujeedadiisuna ay tahay laba shay oo kaliya midda koowaad inay tahay maamul wanaag oo macnaheedu si hoos galayso dawladda hoose oo furan waxba aan u qarsoonayn oo waxa soo galay ay cad yihiin meesha ay ku bixisana ay cad yihiin taas waa waxa ugu weyn waa qodobka koowaad ee ugu weyn qodobka labaad ee ayadana muhiimka ah waxa ay tahay in dadka Muqdisho jooga ee gobolka Banaadir 17 degmo ay runtii ku dhiiradaan in maanta ay dareemaan dhisidda kalsoonidooda shacabka kalsoonidiisa inaan dhisno haddii ay tahay shilin soo galistiisa iyo bixistiisa wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee dawladda Soomaaliya mudane Cabdullaahi Sheekh Cali Quluucu ayaa sheegay in wasaaradda maaliyadda ay nidaamkani ku garab istaagayso maamulka gobolka Banaadir xisaab xir furan oo elektaroonig ah qof walbaba uu arki karo hay-addu waxay qabatay waxay qaaday iyo waxay kharash garaysay waa daahfurnaan cad aad baan ugu mahadinaynaa haddaan nahay wasaaradda maaliyadda ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar waxa uu sheegay in hab xisaabeedkani uu door ka qaadanaya ka hortagga musuqmaasuqa iyo in dadku ay isku tashtaan gudoomiye markasta dawladda federaalku diyaar bay ku tahay inay kala shaqeyso inay ku gacan ku siiso maamulka gobolka Banaadir iyo maamulkaaguna la shaqeeyaan aynu gacmaha isqabsano dhamaanteed wada shaqeyno waxaan u soo jeedinayaa markaa ganacsatada Soomaaliyeed iyo shacbi weynaha gobolka Banaadir ee nabadda jecel in ay ku tashataan aamintaan is-aaminkaasi waa muuqdaa aad tijaabisaan shilinkaad bixiseen halkuu maray halkee lagu bixiyay maxaa loo isticmaalay maxaa lagaga qabtay wadooyinka maxaa lagaga qabtay bilicda magaalada Muqdisho maxaa lagaga qabtay adeega ay tahay in ay magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir uu waajibaadka saaran u yahay ee uu ka shaqeynayo maxaa lagaga qabtay dhalinyarada iyo waayeelka iyo dhammaan adeegyada kala duwan sariibadaha suuqyada maxay soo kordhiyeen taasi si ay u hirgasho waa inaynu isla xisaabtanaa maamulka gobolka Banaadir ayaa horey u balan qaaday in uu la imaan doono nidaam looga hortagaya musuqmaasuqa isla markaana fududeynaya isla xisaabtanka si dadweynaha Soomaaliyeed ay u helaan qaab ay ula socdaan sida loo maareeyo dhaqaalaha laga qaado ee canshuuraha dalka Nuur Saciid Tahliil raadiyo TV qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.